hooyadaadii xamuurada barsan jirtay iyo tafiirta hooyadaaba was ilaa yahay dhiladu dhashay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. guud ahaan meel kasta oo joogtaan saaxiibayaal, waxaan ka codsanayaa oo aan ka rabaa inaad YouTube channel-kan aad daawanaysid inaad subscribe saarto oo sii shaqeyso la wadaagto asxaabtaada. intaas ka codsanaya. inta waxa ku xigta arrimaha bulshada wali anigu reaction kama bixin, laakiin galabta ayaan u soo dharbigtay oo aan rabaa inaan kala hadlo durmado. bal midka ugu horeeya in sideenahay hooyadaadii xamuurada barsan jirtay iyo tafiirta hooyadaaba was ilaa yahay dhiladu dhashay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waninku afalaka wariya war hooyo lama caayo ninka ragga, laakiin haddii aad wax ku qabato si ragnimo ku jirtaa wax loogu sheegaa. laakiin ninka de hooyadii lama caayada, hooyadii de waa hooyada kala isagoo qofku inuu wax garan waayo ceeb ma aha. qofka hadduu wax garan waayo ceeb ma aha, waa cilmi. macnaha haddaad wax garan weydo marka labaad wax ku noqonaysa inaad garata noqonaysaa. marka hadda waxaa laga yaabaa haddaad si fiican ugu sheegi lahayd oo si fiican ugu sharax lahayd waxay ciidahan kala yihiin iyo sida ay kala yihiin halkay kala degaan u sheegi lahayd muhiim bay ahaan lahayd. laakiin dhibaatada waxaa ku timid ba dee ninkuu afleegadiisa waxaana maadax rabaninba waad caytantay un dembigiin adigu bugu raacaya. maxaa faa'iido marka والله like سمران إساق إن سكمدي بقوم لا صفات سمران هدام بعكو ردي قال واحد دجال جبتي قال واحد دجال هذا الجلع ودلي anigan kula hadlahaya u maleynaya macnaha samaroonku inuu laf isaaq ka tirsan yahay. aniga kula hadlahaya iminka aad daawanaysid ayaa u maleynaya samaroonku inuu ka mid yahay laf macnaha isaaq ka tirsan, maadaama oo dee isaaqu uu dee inta soo qabiilo badan u kaliya oo branchyo badan u kala baxo. waxaan moodahay laf ayaga ka tirsan oo macnaha de booram iyo halkaa digta. anigana u maleynayaba aad maxaa sheegaysaa marka قال واحد دجال هذا الجلع ودلي نعلا hooyadaa ku yaale xamuurad baan ku soo gaday. xamuuradda soo إساق سكمد من مودي شيء markaas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. kuwa dambigood ilaahay naga dhaaf ku dhigay isla abdi kaway la dul mareena waxa uu rabtayna ma leh kulay kuba saxuna afligaadii bal halka ku dhaafnaba. diga wax ka qurux badan ma aragtay. waxa igu qurux badan xubinta taranka ay ragga. ilaahay kaanagaas oo dhagax sida lagaaga malaas saacada saaca waxaan weynaga istaashaan waxa ay dhahnaa ka war waxa. laakiin saas ma yani sida maynaysan dadkan macnaha waxa wala jeedaan inay wax fani oo lagu qosla ka dhigaan. laakiin midba meesha taal loo mixshoonayaan shotkiya tagi ana meeshay gabadhu saas kale ahay ma oga miya inay dad daawan doonaan. macnaha dad waaweyn oo ka caqli badan oo cilmi leh oo culimo leh oo camal oo carruur leh wax kasta inay daawan doonaan gabadhu ma oga miya. wiilkan macnaha asagana wareysanaya oo ka sii daran buu waxshoonayaan. baalkaas fanaxda leh sidoo kale qurux badan yahay. waxa isku qurxinaa oo isku carfinaa asaga. kun macna la'aan baa noqda waa macalana waa no meaning macna ay samaynayaan oo ilaahay abuurtay ma leh. oo sabab tahay dee waxaa hadday social media la soo fadhiistaan maxaa kaloo dee aad ka sugaysaan dee أحمد حاجة استاج أحمد هويو أبا كراعي هوي مرة بتد نمري تشاو بركة باباي ولا لا خير لو كسي خير بنقول تيني ولا أحمد ما يقطعتي carruurtu waa ubax la beerto. waxaad ku beerato umaadna ka goosanaysaa. eeg hadda intaad cunug dhasho aad iskaga tagto hadhow faa'iido kama helaysid. oo sabab tahay cunug un aad dhashay waad u dhashay un maada kursanin waxbarasho kamaada bixin weligaa maad arkin wuxuu ku noolyahay wuxuu ku casheeyo wuxuu xidho weligaa maad arkin. laakiin waad u dhashay xaq waalidnimo unbaad macnaha ku leedahay. macnaha waalid baa tahay dee xaq baad ku leedahay, laakiin waad u dhashay wax kale umaada tarin. marka cunuga waxba kumaada beeraan waad u dhashaan. marka waa sida geedahoo kale. macnaha geedka curdaanka markuu yahay markii la beerto weynaado lahaba marka ugu dambaysa weynaado hooskiisa la harsataa ama midhaad ka goosataa. laakiin haddaad geedka intaad dhulka geliso aada biyo siinin waxba siinin geedkii oo intuu soo baxo intii yaraad ama xoolaha
ama ruux uu ku istaago ama xoolaha ay goosato intii yare ma garanaysaa in yaroo gumad asay u taagni marka dambe way qalali marka hadhow waad kuwan goobiyo hadhow ama midha kama goosanaysid hoosna kama harsanaysid carruurtuna waa sidaas oo kale marka haddii ilmaha hooyadood ay u fiican tahay hooyadii u jeclaanaya haddii aabihiis u fiican yahay aabihii u jeclaanaya hadday labadaba u fiican yihiin oo labadaba hooyii aaba fiican yihiin labadaba u jeclaanaya marka intaa ka badan kusii dheeran maaye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ha ilaabin youtube channelkayga inaad subscribe saarta ha ilaawin bal okay ha ilaawin inaad subscribe saarto like na garayso la wadaagta asxaabtaada weliba ha ilaawin adigaasaan ku hadlaa